Ma ogtahay in madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde inuu ku dhashay magaalada Beledweyne 9kii Diseembar 1908 waxa uuna Soomaaliya madaxweyne ka noqday intii u dhaxaysay 1dii Julaay 1960 ilaa 6dii Julaay 1967 waxa uuna ku geeriyooday magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya 8dii Juun 2007 dhalashada Jamhuuriyadda Soomaali iga aqbala inaan wada jir isku faanino kulligeen kala sooc annaga oon lahayn oo dagaalka aynu soo wada gallay xorriyada maanta noo dhalatay maanta waxaa dhalanaysa taariikh cusub oo ummadda Soomaalida ah ay leedahay taariikhdaas dagaal baynu ka soo marray sidii aynu wada jir iyo sharaf aynu ugu noolaanno taariikhda ummaddayada Soomaalida oo dhalinta yar leh waxaa ka buuxa saad ka warqabtiin dhib badan aynu soo marray yaa laga sheekayn karayaa sugi tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karayaa rajooyin badan oo wax badan aan wakhtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaasoo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin qaluubtayada ayadoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxay nahay xor taladayada gacantana inoogu jirtaa Ma ogtahay in ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay yeelato uu ahaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud sanadii 1949 xilligaas oo Soomaaliya loo diyaarinayay inay noqoto dawlad iyo waddan madax bannaan Ma ogtahay in xorriyaddii ka hor uu Aadan Cabdulle Cusmaan uu noqday gudoomiye baarlamaan taas oo ay ka caawiyeen gumeystigii Talyaaniga ee koonfurta Soomaaliya joogay sanadii 1956 ogtahay in qofkii ugu horreeyay ee qalin wax ku qora oo ahaa Nabi Idriis naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee Ma ogtahay in waddanka Indonesia uu ka kooban yahay in ka badan 13,000 oo jasiiradood isla markaana uu yahay waddanka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dal qura ku wada nool xornimadiisana waxa uu ka qaatay waddanka Holland sanadii 1947